السلام عليكم كلنتي وناكسن إيران إي إسرائيل ولي waxay warbaahinta isu marinayaan maalinkoodii saddexaad hanjabaadyo aad u culus Iiraan ayaa maanta waxay sheegtay gantaaladii habeenkii xalay ay ku garaaceen gudaha Tel Aviv inay ahaayeen kuwo qadiim ah haddii ay adeegsan lahaayeen gantaalada casriga ah in Tel Aviv oo dhan ay ka dhigi lahaayeen dukum daakum dhanka kale maanta waxaa si kadisa loo arkay oo faarkii Netanyahu iyo dhammaan wajiradiisii kale Netanyahu ayaa wuxuu ka soo muuqday halka loo yaqaano Beit Yam oo ka tirsan Tel Aviv oo habeenkii xalay gantaaladii Iiraan halkaas ay ku garaaceen dhamaantood halkaas ay ku habsadeen Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hanjabaad hawada u marsiiyay Iiraan isagoo oo sheegay in hubkooda nuclearka ay burburin doonaan sidaas oo kale waxa uu sheegay Israa'iil inay ku jirto dagaal ama halgan ay markaasi jiritaankeeda ay ku difaacanayso isagoo waliba Netanyahu shacabka Israa'iil ka codsaday in arinkaasi ay fahmaan dagaalkan ay ku jiraan inay tahay mid jiritaanka Israa'iil ay ku difaacayaan run ahaantii shacabka Israa'iil ayaa waxay dareemayaan culays aad u daran oo habeenadii ugu dambeeyay labadii habeen ugu dambeeyay rucbi weyn galay haddaba halkan Netanyahu maanta uu ka soo muuqday ee lagu magacaabo Beit Yam gantaaladii ay markaasi ay soo tuureen Iiraan ayaa halkaas ku habsaday waxaana la leeyahay waxa ku geeriyooday dad gaaraya ilaa 10 qof halka dadka dhaawacmayna markaas ay gaarayeen 200 runtii arinkaas oo la yaab ku noqotay xitaa warbaahintii caalamka iyo falanqeeyaasha maadaama burburkan baaxadda weyn oo xitaa mararka qaarkood dadka ay ku kaftamayaan in Iiraan ay adeegsatay qayb ka mid ah hubka nuclearka marka Israa'iil waxay iska soo jartay in halkaas ay ku geeriyoodeen 10 qof oo kaliya baaxadda burburkana waa mid aad u weyn dhanka kale muuqaal habeenkii xalay laga ilaalinayay baraha bulshada ayaa maanta la soo daayay midkaas oo ah in Israa'iil gudaha Tel Aviv ay dhigtay difaacyada hawada oo habeenkii xalay ku wareeray difaacaasi inuu ka hortago gantaalada ee Iiraan ay soo tuurayso laakiin aakhirkii waxa dhacday isla raadaarkaasi ama difaacaasi hawada in isaga laf ahaantiisa gantaalada Iiraan ay soo tuureen halkaasi ay ku soo afjareen marka xaalad fashil weyn ayaa habeenkii xalay Israa'iil ka qabsatay gudaha Tel Aviv dhanka kale Netanyahu maanta waxa uu sheegay in Iiraan ay ka aargudan doonaan dilkii ay u geysatay shacabka gaar ahaan haweenka iyo carruurta arinkaas oo laf ahaanteeda noqotay wax lala yaabo tan ilaa 7 Oktoobar Israa'iil waxaan la soconaa si adduunka oo dhan live looga daawanayo inay waxa suuqaan carruurta iyo haweenka iyo dadka makaas maxasta ay ku nool gudaha marinka Gaza arinkaasina maanta waxa uu leeyahay Iiraan ayaa waxay naga dishay 10 qof oo haween iyo carruur u badnaa dhanka kale wali waxa socda hanjabaadihii cuslaa ee Israa'iil iyadana ay u direysay dhanka Tehran wasiirka difaaca Israa'iil ninka lagu magacaabo Israel Katz ayaa waxa uu sheegay in Tehran ay u bedeli doonaan sida isaga uu leeyahay sidii Beirut ay Israa'iil ay u gashay 800yadii iyo sidaas oo kale 2024 wajarkii kale ee wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa isagana waxa uu sheegay in dagaalkan uu sii socon doono isla markaana ay burburin doonaan hubka nuclearka Iiraan ay haysato maadaama Iiraan ay tahay cadowga koowaad ee gobolkan ay ku leeyihiin Israa'iil sidaas oo kale wasiirka amaanka qaranka Israa'iil ninka lagu magacaabo Itamar Ben-Gvir waa wajarkii ugu weynaa isagana waxa uu leeyahay marnaba kama waaban doono in aan weerarno barnaamijka nuclearka Iiraan isagoo waliba sheegay in dagaalkan uu sii socon doono runtii maanta wasiirka arrimaha dibadda wadankaasi Iiraan Abbas Araghchi waxa uu sheegay in uusan doonin in aysan Iiraan aysan doonin in dagaalka gobolka oo dhan uu ku baaho gaar ahaan bariga dhexe ama caalamka haddii Iiraan ay Israa'iil ay ka waaban weydo duqeymaha ba'an ay ka wado gudaha wadankaasi Tehran in Iiraan iyadana ay qaadi doonto talaabo la mid ah wixii ay qaaday Israa'iil dhanka kale arinta la yaabka iyo qosolka leh waxay tahay in Israa'iil ay dib ugu magacawday afhayeenka ciidamada Israa'iil Daniel Hagari oo aan la socono 7 bishii March 2025 xilka laga qaaday hadda ayaa dib loogu wacay kadib markii la ogaaday ninkan inuu ka soo baxay jaamacadda Ben Hawas markii xilkan laga qaaday oo faarkii Netanyahu ayaa aad u difaacay ninkan oo waxa uu sheegay ninkan in jaamacaddii ugu dambeysay ee Ben Hawaska oo shahaado uu ka sito waxaan la soconaa 7 Oktoobar wixii ka dambeeyay gudaha marinka Gaza in ninkan dhowr mar uu ku ceeboobay waxyaabo uu markaas uu doonayay in caalamka uu ka iibiyo waxa kamid ahayd in gudaha marinka Gaza gaar ahaan isbitaal ku yaala marinka Gaza kalendar dhaganaa oo maalmaha Sabtida Axadda Isniinta uu ku tilmaamay inay yihiin
magacyada kuwa markaasi iyaga u yaqaanaan argagixisada oo markaas uu ka wado iska caabinta Falastiiniyiinta caalamkii oo dhan ayaa lagu qoslay oo ma waxa hadda sabti iyo axad ayaad ku tilmaantay inay yihiin magacyada dad bini aadan ah sidaasi oo kale waxaa la arkay isaga oo meel god ah oo Israa'iil yani gudaheeda ku yaala inuu ku tilmaamay inay tahay god ku yaala gudaha marinka Gaza arinkan oo fashil weyn Israa'iil ku riday marka hadda waxaa loo baahday been hawaasnimadiisii maadaama habeenkii xalay Israa'iil dharbaxyo kulul ay kala kulantay dhanka Tehran marka hadda sababta ninkan dib loogu magacaabay waxa lagu macneeyay habeenkii xalay dharbaxyadii kulul ay kala kulmeen dhanka Tehran in loo baahan yahay qof adduunka ka iibiya in Israa'iil la xasuuqay in Israa'iil nuclear loo adeegsaday in Israa'iil yani dhulka la dhigay yani cid ka iibin kara in la keeno maadaama ninka hadda xilkan haya lagu magacaabo Avi Duverain uu yahay nin iska afgaaban marka qaarkood u degdegaya in uu isku dayo inuu run sheego yani in gudaha Israa'iil dadka ku dhintay uu yani loo soo qoro in intaas ku dhimatay la yiraahdo laakiin ninkan lagu magacaabo Hagari uma baahna isaga ayaa beenta abuurta oo jaamacadda Ibliis ayuu ka soo baxay oo shahaadadii ugu dambeysay ayuu sitaa waynu arki doonaa wax uu ku soo kordhiyay xaaladan laakiin run ahaantii muuqaalada baraha bulshada lagu arkayo ayaa ah kuwa qaarkood marka qaarkood qosol leh waxaynu arkaynaa habeenkii xalay waxaynu aragnay Beirut gantaaladii markay ku soo socdeen dhanka Israa'iil dadkii in ay jazz ay ciyaarayeen in markaasi ay music iska ciyaarayeen sida muuqaalkan baad ku arkaysaan dhanka kale sirdoonka wadankaasi Iran ayaa waxay sheegeen in ay soo qabteen laba qof oo markaasi lagu tuhmayo in ay la shaqeynayeen Moosaadka Israa'iil kuwaas oo lagu soo qabtay iyagoo xiraya qalabyo elektrooniga ah oo ka samaysan qaraxyo waaweyn ay doonayeen in ay ka howlgeliyaan gudaha wadankaasi Tehran insha Allah wixii arimahan guud ahaanba ka soo kordha dib ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa iyadoo gudaha Tehran laga maqlayo qaraxyo waaweyn waxay noo balansan caawa oo Tehran ay sheegtay in ciyaar aad u culus ay ka dhici doonto gudaha Tel Aviv ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 956